Assalaamu calaykum. Guusha ugu weyn ee la gaadha waxaa lagu tilmaamaa inay tahay inaad naftaada ka adkaatid oo aad u jihaysid dhanka guusha iyo horumarka aakhiro iyo adduunba aan iyadu hawaadka ku jeedin. Marka maanta waxaan rabaa inaan 5 qodob oo aad muhiim u ah ama 5 xirfadood aynu oran karno inaan kula wadaago. Xirfadda koowaad waxa weeyaan waa self control ama xakamaynta nafta. Qisa yar aynu soo qaadano ninka la yiraahdo Ibrahim Fiqi oo ahaa qoraa weyn oo Masriya ayaa buug u qoray ugu magac daray xakamaynta nafta. Waxa uu ku qoray qisa yar oo cajiib ah. Qisadaas waxay leedahay boqor ayaa wax soo gatay maroodi si uu ugu qurxiyo beerta qasrigiisa. Markuu soo qaatay maroodigii buu markaa bir weyn intuu kula xiray buu silsilad ugu xiray. Maroodigii markaa wuxuu sameeyay isbuucii koowaad inuu aad ugu dadaalo inuu xorriyadiisa helo. Isbuucii labaad markuu la gaaray maroodigii waxa dhacday inuu ka niyad jabay inuu baxsan karo. Wuxuuna aaminay inaan meesha ka baxsan karayn. Isbuucii labaad markuu dhamaaday boqorkii wuxuu qaaday birtii buu ka soo qaaday qori yar buu ugu dhajiyay meeshii. Ninba markaa meesha soo maray wuxuu arkay maroodigan xajmigiisa iyo awoodiisa iyo qorigan yar ee ka dhinac taagan oo uu ku xiran yahay. Boqorkii uu tagay wuxuu yiri arrintaas ka waran markaas wuxuu ku yiri boqorkii awoodin iyo xajmigiisa aad arkaysid maroodiga inagoo baa aragna laakiin isagu ma arko oo wuxuu aaminay inuu halka ka baxsan karayn. Marka qisadan wuxuu soo qaatay inaad naftaada xakamaysid oo waxyaalaha qaar ee munaasabka ah inaadan aaminin. Qodobka labaadna waxa weeye waa communication ama xiriirka aad bulshada la leedahay. Waxa la yiraahdaa dadka aqoonta bartay iyo dadka xirfadda communication-ka yaqaana 80% waxa guulahooda ka mid dhaliya qofka communication-ka ama xiriirka bulshada uu la leeyahay aad u fiican yahay. Laakiin qofka aqoonta bartay ilaa PhD gaadhay waxa la yiraahdaa noloshiisa wuxuu hadafkiisa rumeeyaa 20%. Xirfadda saddexaad waxa weeye waa understanding other feeling. Inaad akhrisan kartid dareemayaasha dadka kale. Waxa jira dad badan oo inaga agdhow oo ay friends iyo saaxiib iyo walaal iyo xaas iyo carruur leenahay. Dadkaasi dareemo kala duwan bay leeyihiin. Mar waa cadhaysan yihiin, mar waa faraxsan yihiin, mar waa murugaysan yihiin. Waxa la rabaa qofkan taadan baacul la sameyn inaad marka koowaad dareenkiisa akhrisid. Qofkan haddii murugo la ku jirto murugada la qaybsatid, haddii farxad ku jirto farxad la qaybsatid. Marka qodobkan aad buu muhiim yahay. Qodobka afraad waxa weeye waa solving problem solving. Yani xalinta mushkilaadka, caqabadaha, dhibaatooyinka. Waxay qayb weyn ka qaadataa inaad xalisid caqabadaha noloshaada inaadan ka cabsan oo aadan ka baqin. Buugga la yiraahdo Aabaha Faqiirka iyo Aabaha Taajirka ayaa qoraagu wuxuu ku xusay in waxa weeyaan aabaha faqiirkuna uu yiraahdo ha u dhawaanina mushkilaadka iyo caqabadaha. Aabaha qaniguna uu yiraahdo cillad walba iyo caqabad walba oo ka hortimaada inaad xalisid isku day. Qodobka shanaad waxa weeyaan waa discipline weeyaan ama edebta weeyaan. Edebtu qofku inuu edeb lahaado, muxtarim ahaado, waxay ka qayb qaadanaysaa horumarka naftiisa. Oo naftiisa inaanay waxa weeye waxyaalaha qaar aanu dadka kula dhicin oo uu ka xishoodo bay keenaysaa. Marka edebtuna waa qayb muhiim ah oo naftaada inaad skill ka bartidna ay muhiim tahay. 5 qodob baan jeclaystay inaan idin la wadaago. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.